waxaan ula tagnay anagu 5 qodob baan la tagnay oo ah 5 qodob ee ah rukunka u ah in doorashada madaxweyne waqtigeeda dhacdo oo waxa uu muhiim ah in horta madaxweynuhu committed ku yahay in doorashadu waqtigeedii ay dhacdo November 13keedii si uu dhacdana rukumadii demonstrationka oo ka mid tahay commissionka oo hadda shaqadii la joojiyay uu galiyana magaranayay guddi baaris awiri iyo inuu magaranayay uu sameeyay diiwaangelintii oo heed in la bilaabo ayaa qodobadan ula tagnay waxaan kaloo laga tagnay in faragelinta madax banaanida commissionka la ilaaliyo sida caadi ahaan jirtay iyo xilka agaasimaha guud ee commissionku oo ahaan jirin qof la soo appoint gareeyo shaqaalaheed ahaan jiray qof xirfad yaqaan ah oo la baahiyo oo commissionku si madax banaan oo dalbado intaasaan wada tagnay nasiib darro waxaan u tagnay horta madaxweyne caareysan oo moodidina isaga la dulmiyay oo waliba aniga dulma badan iga sheeganaya anigu markaa madaxweynuhu qorshihiisii ahaa inuu ururada furo bisha magaranayay June 26keeda ayaa ka go'aneed marka madaxweynuhu waxaan tahay madaxweyne qorshihiisii uu dhigtay daafacaya laakiin aan ka muuqan madaxweyne flexible oo u diyaara in la sixriixo si ku noolaan jirnay magaranayay wada tashi iyo concessionkii tanaasulka ku soo dhaxmaarnay aan u diyaareen ayaan u tagnay caawa madaxweynahan arkay madaxweyne diyaar u ah wada hadal iyo wada jir iyo wada tashi iyo doorasho inuu qabto madaxweyne uma diyaaraha